xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama waxaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay tirinta madax taabashada taageerayaasha ururada siyaasadda taasoo guddida loo xil saaray tirokoobka ururada ay maanta soo kulmeereen dhammaan urur siyaasadeedyada ay ka mid ahaayeen udhis ummadda badbaado rays wadani iyo dhammaan 15 urur siyaasadeed ee ka duwan gashan Jamhuuriyadda Somaliland waxaanad ku arkaysay xarumaha ururada ay ku leeyihiin magaalada Boorame dhammaan taageerayaasha oo isbuuxiyay waxaana urur walba laga rabay in laga helo taageerayaal tiradoodu ay dhan tahay 1,000 qof oo madax taabasho ah waxaana halka ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha ururada iyo gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka wadani Axmed Muumin Seed oo uga mahad celiyay taageerayaashiisa sida ay uga soo qayb galeen tirokoobka bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku hadlaya urur siyaasadeedka wadani maanta waa maalintii maartaanay lanaga doonay kunkii qof waana tagta soo tugnay imika tirada bilaabmaysa safafkan hagaajinayna waxaan taageerayaasha leeyahay aad iyo aad badmaadsantiin ilaa saaka cid taagnaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan hawlwadeenadii iyo mas'uuliyiintii la shaqeynayay dhalinyartii iyo baabuurtii iyo wixii shaqeynayay aad baan u mahad celinayaa dhanka kale gudoomiyaha komishanka Cabdirasaaq Maxamed Ciyaale ayaa saxaafadda uga warbixiyay sida habsamada leh u dhacday tirokoobka ururada siyaasadda isagoo oo waliba xusay in ay si nabadgelyo ah u dhacday hawsha tirokoobka diiwaangelinta iyo dadkaba ah waxaanu aad uga mahadnaqaynaa sida dadku nabadgelyada ay u ilaaliyeen iyo ciidanka amniga ee gobolka Awdal oo si wanaagsan uga hawlgalay sidii u sugi lahaayeen nabadgelyada iyo amniga guud ciidamada ka socda ee qaranka oo iyaguna hawsha intii ka dhinayd dhammaystiray waxa aanu halkan ku sheegaynaa gobolka Awdal Boorame inay maanta si fiican uga dhamaatay marxaladii aanu u soconay si nabadgelyo ay u socotay beritoona insha Allah in aanu ka bilaabi doono gobolka Baroodijeex xarunta caasimadda qaranka Hargeysa ayaanu ka bilaabi doonaa sidaas leeg waxaanu rajaynaynaa inay sida loo kala u dhacdo waxa haddaba munaasabada kaga faa'iideysanaynaa gobolada haray waxaanu leenahay Boorame ku dayda sida nabadgelyada ay u dhacdayna ku dayda ururadana waxaanu leenahay dadkiina habeeya oo boqol qof 10 saf oo min boqol ka dhiga si aan loogu raagin oo loogu dhibaatoon tirinta sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Boorame Cabdiraxmaan Shidabale iyo xildhibaano kale ayaa ka hadlay sida ay u dhacday madax tirinta taageerayaasha ururada siyaasadda horta farxad bay noo tahay inay si nabadgelyo ah ugu dhamaato barnaamijkii diiwaangelinta ururada ee laga doonayay tirada dadka ah ee loo cayimay waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay ku dhamaatay sida ay ku bilaabantay iyo sida loogu sii diyaar garoobay isku soo wada duuduuba tirokoobka madax taabashada ay maanta guddiga komishanku ay soo kulmeereen 15 urur siyaasadeed ayaa noqonaya wareegii ugu horeeyay isreereebka ururada siyaasadda Cabdi Fataax Jaamac Nuur Somaliland Space Channel TV magaalada Boorama